halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal waa 4 bisha Agoosto Afrikada Barina saacadu waa 5 galabnimo oo gow ah. barnaamijka galabta ee waxay ila tahay waxaynu ku eegi doonaa xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya gaar ahaan musuqmaasuqa iyo eexda la sheegay in ay hareeyeen tartamada caalamiga ah ee saameyn xun ku yeeshay dareenka shacabka iyo sumcadda dalka. musuqa ayaa sababa guuldarooyin degdeg ah iyo saameyn qoto dheer oo ku yeeshay markaasi ciyaartoyda soo bandhigi lahaa xirfadooda. dalka Shiinaha dhawaan waxa ka furmay tartan orodada jaamacadaha Soomaaliya waxa uga qayb gashay gabar sida muuqatay tartanka aan u diyaarsanayn, taasi oo keentay in dadku ay si cara leh uga falceliyaan. wasaaradda ciyaaraha Soomaaliya way iska fogeysay inay ku lug lahayd habkii tartankaasi lagu soo xulay oo gabadhaasi ay markaasi Soomaaliya uga qayb gashay, waxayna eedda dusha ka saartay xiriirka ciyaaraha fudud oo markaasi keenay in shaqadii laga joojiyo gudoomiyihii xiriirkaasi. barnaamijka khubaro iyo ciyaartooy arrimaha la socda ayaa nagala qayb galaya, aragtida dhageystayaasha ayaana qayb ka ah. xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya gaar ahaan musuqmaasuqa ee xal sheegay inay ku ruganayaan tartanada caalamiga ah kadib ciyaartii ka dhacay wadanka China ee Soomaaliya guuldarrada kala kulantay. runtii waa mid hoos u dhigaysa samcadda uu lahaa xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya iyo rajada ay shacabku ka qabeen xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya. waxa jirta xilli ay Soomaaliya kamid ahayd wadamada caalamka dhinaca ciyaaraha ugu horeeya, haatan ku dheed wax mudaan soo kabasho lagu jiro mar haddii aan ka qayb galno ciyaaraha caalamka oo gormada weyn caalamka ka muuqanayno. dhawaana waa tii aan Soomaaliya guusha ka keentay ciyaaraha bartamaha bariga Afrika. waxa kaloo jira tartamo caalami oo ka qayb galo heer wanaagsan soo gaadhay. khasabna ma markastoo ciyaaraan ka qayb galo inaad guuleysato ama heer wanaagsan soo gaadho. balse marka hore dhageystayaal waxaynu ku hormaraynaa wararka caalamka iyo Foosciid. mahadsanid xasan. dowladda Itoobiya ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Axmaarada kadib dagaalo culus oo maalmihii la soo dhaafay ku dhex marayay maleeshiyada deegaanka ah iyo ciidamada dowladda. xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in nidaamka dastuuriga ah ee Axmaarada uu halis ku jiro. madaxweynaha ismaamulka Yiil Kavale ayaa ugu baaqay xukuumadda Addis Ababa in ay xaaladda wax ka qabato. waxa soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyada deegaanka ah oo loo yaqaano Fano ay la wareegeen gacan ku haynta deegaano dhowr ah. maxkamadda sare ee Hindiya ayaa hakisay xukunkii lagu ridayay hogaamiyaha sare ee mucaaradka Rahul Gandhi, taasi oo caddaysay wadada uu ugu soo laaban karo baarlamaanka. horaantii sanadkan Mr. Gandhi ayaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii uu faalo ka bixiyay magaca ra'iisul wasaare Narendra Modi oo loo arkay aflagaado. Ukraine ayaa sheegtay inay duqeysay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Ruushka oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku hubeysan ku dhawaad nus tan oo walxaha qarxa ah. markabka ayaa ku soo xirtay dekedda Novorossiysk ee badda madow. Ruushka ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarka ay ku soo qaadeen diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ah. madaxweynaha la doortay ee Niger ayaa ka codsaday dowladaha shisheeye inay gacan ka geystaan soo celinta nidaamka dastuuriga ah ee dalkiisa kadib afgembigii toddobaadkii hore. Maxamed Bazoum ayaa ka digay in gobolka Saaxil oo dhan uu hoos yimaado Ruushka. dhanka kale afayeen u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in fargelinta shisheeye aysan faa'iido u yeelan doonin Niger. dalka Lubnaan ayaa waxa ka socda maalin baroordiiq ah oo lagu xusayo sanad guuradii 3aad ee ka soo wareegtay markii qarax weyn oo dhacay amaba ka dhacay dekedda Beirut uu galaaftay nolosha in ka badan 200 oo qof. ugu dambeyn xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa baaraya dacwad kufsi ah oo ka dhan ah tababaraha Zambia. Macalin Muwabe ayaa waxa lagu eedeeyay inuu gacantiisa dul mariyay laabta xubin ka tirsan kooxda intii lagu guda jiray koobka adduunka ee haweenka. eedaasi ayuu macalinka haatan iska fogeeyay. wararkii caalamka waa naga intaan dib idinku celiyo Xasan Sheekh Umar iyo qaybaha kale ee barnaamijka. aad bay u mahadsan tahay Foosciid oo nala socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC-da. dhageystayaal markaana qaybaha kale ee barnaamijka u diyaar garooba. waa hagaag dhageystayaal mar kale galab wanaagsan jimco wanaagsan. sidii hordhici barnaamijkaba aad ku maqlayseen
barnaamijkeena galabta waxay ila tahay waxaynu markaasi kaga hadli doonaa xiriirada ciyaaraha ee Soomaaliya gaar ahaan musuqmaasuqa iyo eexda la sheegay in ay hareeyeen tartamada caalamiga oo saameyn xun ku yeeshay dareenka shacabka iyo sumcadda dalka. Musuqa ayaa sababay guuldarrooyin degdeg ah iyo saameyn qoto dheer oo markaasi ku yeesho ciyaartoyda soo bandhigi lahaa xirfadooda. Dalka Shiinaha dhowaan waxaa ka furmay tartan orodada jaamacadaha. Soomaaliyana waxa uga qayb gashay gabar sida muuqatay tartanka aan u diyaarsanayn, taasi oo keentay in dadku ay si cara leh uga falceliyaan baraha bulshada. wasaaradda ciyaaraha Soomaaliyana way iska fogeysay inay ku lug lahayd habkii tartanka loogu xushay gabadha, waxayna eedda dusha ka saartay xiriirka ciyaaraha fudud iyadoo shaqadii ka joojisay gudoomiye xiriirkaasi. barnaamijka oo arrimahaasi aynu kaga hadlayna waxaa nagala qayb galaya Abuukar Maxamed Sheekh, gudoomiyaha naadiga Muqdisho City Club ee qadka magaalada Muqdisho ayuu kaga jiraa. Waxaa sidoo kale nagala qayb galaya Sucaad Galow oo horey ugu ciyaari jirtay kooxda Horseed ee kubadda kolayga Soomaaliya muddo badan ku nool Mareykanka, hase yeeshee hadda waxay ku soo laabatay dalka Muqdisho ay qadka kaga jirtaa eena. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Cabdi Nageeye, orodyahan u orda dalka Holland. dhammaantiin waad mahadsantihiin, waan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka marka hore. waayahay mar kale waad mahadsantihiin waqtigiina. waxaan ku bilaabayaa Abuukar oo Muqdisho qadka kaga jira. haddii Abuukar aan kugu bilaabo, Soomaaliya guuldarrooyin soo noqnoqday ayay kala kulantay qaybaha isboortiga. marka hore si kooban xaggee bay dhibaatooyinku ka jiraan? horta maxay dhibaatooyinkani salka ku hayaan? marka hore waa mahadsan tahay fursada ayay ii tahay maanta inaan ka qayb galo barnaamijka dooda BBC. run ahaantii fursad waxay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in laga qayb galo ciyaaraha caalamiga ah. sidaad ogsoon tahayna wax kastaba waxaa ka horeeyo diyaargarow iyo maxaa la yidhahdaa in guusha shaqo badan la qabtay intaanan tartamada la aadin ka hor. run ahaantii waxaan dhihi karaa xiriirada kala duwan ee ciyaaraha Soomaaliya isku day way sameeyaan, wayna dadaalaan, oo in muddo ahna dadaal ayay wadeen. guushan waxay ku timaadaa wada shaqayn iyo in dhinac walbaba ay kaalintooda ka soo baxaan. run ahaantii waxaan dhihi karaa in guuldarrada soo noqoto sababteeda waxay tahay in ay bannaan tahay kaalintii dowladda, waana kaalinta ugu muhiimsan ayaan qabaa. sababtoo ah haddii aynan dowladda taageero buuxda aysan siinin ciyaaraha caalamiga ah qaramada noogaga qaybgalaya ha ahaadaan ciyaaraha fudud ama basketka ama kubadda cagta, ma way adag tahay in maxaa la yidhahdaa guul laga keeno. kaalintaas muddana way banaaneed, ilaa haddana way bannaan tahay. waxaan aniga aaminsanahay shaksi ahaan in guuldarooyinka soo laalaabtay sababteeda ay tahay in oo taageerada dowladdii ay meesha ka maqan tahay. waa tahay Abuukar wuu mahadsan yahay. Abuukar Maxamed Sheekh, gudoomiyaha naadiga Muqdisho City Club oo qadka kaga jira Muqdisho. dhageystayaal codka ka agyeerayana waxa uu ku sugan yahay mid ka mid a garoomada Muqdisho oo haatan ciyaaro ay ka socoto. waan kugu soo laaban doonaa, waad mahadsan tahay. waxaan markaan aadayaa Sucaad oo ina Muqdisho kula joogta. Sucaad, dabcan qabiiraad tahay ciyaaraha iyo arrimahana aad baad ula socotaa. isla su-aashaasi xaggee bay wax ka qaldan yihiin ayaad isleedahay oo Soomaaliya sababay in guuldarrooyin mar walba ay kala kulanto arrimaha isboortiga? bismillaah, assalaamu calaykum. waa mahadsantihiin walaal martigelinta, waan faraxsanahay. aniga waxaana ciyaartoydii bariisamaadkii Horseed u ciyaartay gabdhaha qaranka Soomaaliyeedna kamid ahaa muddo dheer. dhibaatooyinka walaal waxay taabanayaan wadankeena oo kale. runtii wax u qaasa maanta xiriirada ama wasaarada ama Olympiga maaha. dhibaatooyinkii badnaa ee ina soo maray ayay qayb ka tahay. at the same time markii dadkii wixii aabaha iyo hooyada u ahaa ama baranayay habka iyo hanaanka loo xulo ciyaaraha ama dadkii soo ciyaari jiray ay ka mid yihiin qayb ciyaaraha, waxaa imanaysa shaqadeed. waxaa jira sida aad ka arkaysaan telefishinada ama radioyaasha ama ilaa iyo 3 casho u dambeysay kala hadal kala duwan inaanay shaqo wadaag jirin. annaga markaan ciyaar jirnay xiriirku iyo Olympiga waxay hoosteeda jireen wasaaradda dhalinyarada sport, laakiin systemka cusub ee ku yimi adduunka 1993 ayaa la kala saaray. wasaaraddiina laga dhigay siyaasadda inay u tahay madax, Olympigana iyo xiriirada ay hoos tagaan. sababaha dartood iyo dadkii u ahaa ehelka garanayay waa ku dhaxaanay oo aan ka dhex muuqan ama xiriiradii ama wasaaradihii
ama la taliyaal ka ahayn ama wasiire ahayn ama aan olombiga dadka haysta runtii waa dad macalin tarabi baa haysta oo ciyaartooyna ahaa guddoomiyaha laakiin dhibaatadu waxay ka imanaysaa qof aan garanaynin waxaan qiimaheeda iyo waxa uu xambaarsan yahay iyo meesha loo socdo higsiga la gaarsanayo haddii aan meesha joogaan dhibaatadan oo kalaa dhacaysa marka dhibaatooyinka waxay ka imanayaan khibrad la-aan iyo aqoon la-aan iskaashanaya iyo waddankiiyo marxalad adag ku jira. waa tahay Sucaad waad mahadsan tahay aan markan soo dhaweeyo Cabdi Nageeye orodyahan u orda dalka Holland oo Soomaali ah Cabdi Nageeye inta badan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan ciyaartooyda waad la socotaa dabcan waadna ka hadashay in badan arrimaha ciyaaraha gaar ahaan hadda hawshii ugu dambeysay ama orodkii ugu dambeeyay ka dhacay Sheenaha oo gabar Soomaali ah ay halka ku soo guuldareysatay adigu markaad eegto guuldarooyinkaasi soo laalaabtay maxaa isleedahay xagee bay arrintu iska qaban la'da wala horta marka salaam alaykum Soomaaliyeed horta labo qayb kala qaybinaya hadalkaygan ka wada qaybta koowaad waxa waaye sida la sheegay dalka burbur ka soo laabanaya laakiin saas ay tahay andana federationadii mid ka noqdo kubadda waa hadda wasiirka waxa maqlay intaas ay dood ay ku mashquulsanaan kubadda iska qabsi Soomaalidana waa aad iyo noogu adagta inaan wax ka kala maqalno marka waxa u jirin dastuur cad oo kala jirin wax lagu kala dambeeyo ayaa degsaneyn qad waxa maqlay mar in labo madaxweyne kala doortay marka waxa jirta ninba sida Cabdi Bala sheegay maantay dad u arka waxaan inay xaafidadu tahay khayr ahaan u heystaba qoys qabiil aan kama wado qoys ahaan buu heystaba oo isla waxa anaaba iska leh marka dhibka ka imaanaya in war cad jirin in kala dambeyn jirin in wixii qorneen هذا كل فاقو أنك أردنا نشوف على الصعداء خليته أردنا مدح سنة بدنا أيام قرنيا wax isbedel ah uguma jeedi jirin Ethiopia iyo Kenya ciyaartooy jooga iska jooga mid saacad keenay kuma jiro qofka ka dhawaajinaysay guulaha ka keenay waxaas wax la kariimaa jamishad carabta oo dhowr ciyaartooy timid inta kale ka baaqad maadaama ciyaaraha duun ay tageen wax la tirsada ma aha marka waxa meesha ka cadaatay hadda badal Soomaaliya way jeedaa in qoys iska maamulanayay arrintaas oo gabar iyo habaryarteed israacayaan oo Talyaani ciyaarey jaamacadii hore oo 2018 Talyaani ka dhacay gabar habaryarteed ay tagtay iskuul jiibtay hadda ma garanayo dadka fiisa u xareysan yihiin waa marka qofna ima jeedo maxaa iga galay ilmihiina waxa lagu gumaysanaya $200 ciyaarta orodka aan soo laabsana orodka sida Cabdi Bala sheegay waa waxaan heebad u lahayn waa sportiga hadii loo firi ugu fudud hawa sare ayaa noo dhow oo Ethiopia iyo Kenya adduunka waxa kubadda ugu fiican Brazil iyo Argentina soo lama dhigi karo labada dal deris kula yihiin war oo saacad diyaarada ka xigto ma waxa la kari waayay ciyaartooy fiican tabar la soo xulo la keeno 2 sano la hayo kii fiican la sii gudbiyo kii hara la soo celiyo say u furuda wallahi wala yaalbinti u furuda in ilmaha lagu soo saaro taasay tahana inta sanad garanaya wax isbedel ah oo lagu sameeyo ma jirto kasqof laga cabsanayo jirin hadda maanta waxa laga cabsanayo maxay tahay oo isbedel u yimid waxa qabatay media qabatay hadii media maanta qaban lahayn marka waxaad leedahay isla xisaabtan ma jiro iyo ka warqab isla xisaabtan ma jiro ka warqab ma jiro waxana uma degsanaba dictator adam ka dhumaya dictator u sheegay dhan ama mulanaya waa dictatornimo caadi ilmihi lama dhahay war saacada ku warda ka soo geenaya warda saacada kibid waxa leedahay mushaarka hada waxa leedahay saas meel dhan oo shan koox la sameystay oo dhahay waa ay ogeeyeen oo laba dabdho walaalaha sheedigi mid kale macnaha waa daciifnimo meesha ugu dareera tagnay ilmihiina ma garanayaan meesha u jeedaan wixii weydiyeen hadda taas aan waxaan ugu dheereenin hadda wiil hadda adduunka sameeyay waxaan saacidayay 2 sano sanad gudaheed saacad ugu sameeyay 2 sano kaliya saacidayay labada dabadii xilka haysa ilaa hadda hal wiil ama gabar oo ku orday qualification time jiro marka waxa arki kartaa salaasna jirin marka waxa wasaaradda iyo olambikada iyo federation waxa raba war cad marka yaa ka gaabiyay kulata marka in lala xisaabtamo oo laga warqabo oo dadkii tababar la siiyo yaa ka gaabiyay waxa ka gaabinaya dowladda dalka ku jiro qof kasta markii lagu dago hebelkiisa reer loo wacanaya wuxuu dhammaan 4.5 ku jooga waxa la odaya loo wacanaya waa hal kala xishoodo naga dhaafo bal kala tagaa la leeyahay adduunyada kale wasiir waxa maqlo mar waraaq suuligu qaaday jiray iska qaaday jiray oo baalbaan ka qaaday jiray soo ugu dan lahayn ayaa lagu casilay meesha ina qof soo jeeda la qeyd mooyaa lagu casilay
هذا تقول بشكل waayahay waad mahadsan tahay cabdinigey waad mahadsan tahay aan markan siiyo abuukar abuukarow sida cabdinigey uu sheegay miyaanu jirin isla xisaabtan iyo ka warqab iyo qofka loo xulanayo inuu meel ka qayb galo miyaan kartidiisa qofka lagu xulan طبعا كرتيس قفوا لو بخشا لكن في الحساب غورمو ايمانيا wuxuu imaanaya markii wax la geliyo kadib ay isla xisaab imaanaya xiriirka Soomaalida ciyaaraha fudud mihiisa budget ku filan oo ku diyaariyo ciyaartoy walaalkii Cabdinigey wuxuu sheegay in wadamada deriska ciyaartoy la geeyo waxay u baahan tahay budget dawladda budget ma fiisa xiriirada ay ku horumariyaan qaramada xiriirada caalamiga ay ka tirsan xiriiradeena sida kubadda cagta ama ciyaaraha fudud ama basketka waxa la siiyaa oo kaliya running cost wax oo lagu hormariyo mushaaraadka iyo shaqaalaha lagu hormariyo laakiin qaranka waxa loo baahan inuu qarankiisa hormariyo oo wadanka oo maaragtay uu ka tirsan yahay uu hormariyo wasaaradda budget ma leedahay oo sportiga lagu hormariyo waa maya shacabka Soomaaliyeed u diyaarsan inay taageeraan qarannimadooda ma u diyaarsan inay qarash ku bixiyaan inay ciyaartoyda iyo xiriirada inay garab istaagaan waa maya dawladda ma awoodaa in ay maanta budgetkiisa xiriirada waa maya taas waxaa sababteeda waa isdaba taala in la isla xisaabtamo waxa ka horeyso in marka hore qofkii ay hesho wixii loo dhiibay meesha ay ku bixisay waa lagu xisaabtami karaa laakiin qof jeedkeeda wax ka wado oo contribution ama dad qaaraan ay ka soo aruuriso wax ku wado haddana in eed loogu daro waa maaragtay ila qalbanta aniga waxaan qabaa mar kastaba in budget loo sameeyo sportiga haddii la rabo in wadanka la hormariyo dawladda keliya xataa shacabka laftigooda waayahay fahamka inta badan abuukar inta badan ciyaartoyda la soo xusho tartamada ka qayb gala nuucay doonaan ha ahaadaane waxay ka yimaadaan inta badan naadiyada adiguna dadka naadiyada madaxda ka ah ayaad ka mid tahay marka adinka laftiinu qaybaad ka tihiin soo lama dhihi karo dadka tababarka ay helaan iyo ka warqabkaasi inuusan idinku badnayn xagga naadiyaasha inuusan ku badnayn oo dadka la soo xulaya xitaa mararka qaar aan lagu kalsoonayn annaga sideenaba waxaan jecelnahay guusha waxaan u shaqeynaa inaan guulaysano mar kastana waxaan soo xulanaa ciyaartoy aan isleenahay guul ayay gaarsiin karaan magaca naadiga ama magaca Soomaaliya intaba laakiin cilada ugu weyn oo haysato sportiska dhaqaale la'aan ma socon karo dhibaatada ugu weyn oo ka jirtana waxay tahay dhaqaale la'aan dawladdeena ma awoodo inay budget ku filan ay siiso ciyaartoyda ama xul qaran ha ahaadaano ama maxaa la yiraahdaa ishaag ha ahaadaano naadiyada ma awoodaan inay siiyaan dhaqaale ku filan guuldarooyinka soo noqdaan waxaa sabab u ah dhaqaale daro aniga ahaan waxaan aaminsanahay in badan aan kusoo dhex jiray sportiga waxaan aaminsanahay in oo haddii dhaqaale ku filan loo helo ciyaartoyda in ciyaartoy talenti ah la heli karo lana horumari karo marka waxaan aniga mar walba aan ku boori lahay ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan inay sportiga horumariyaan qarannimada inay horumariyaan ee qarannimada ku bixiyaan dawladda canshuurta qaadoomo ku filan mana bixi karta dhaqaalaha loo ciyaaryahan ku baahan yahay waa inay dad mutadawiciin ama ganacsato ah ama maaragtay inay u istaagaan horumarinta sportiga markaasaa guul la gaari karaa waayahay sucaad orodku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee geeska Afrika lagu yaqaan Soomaaliyana meel fiican ay ka gaartay sidaynu la soconno dib u dhaca hadda jira maxaa keenay kula ta adiga dib u dhaca ugu weyn walaal labaan kala qaadaya anigu bersanaadkii waxaan ciyaaray 5 sanadood oo isku xigta Soomaaliya qaranka u ciyaaray waxaan u ciyaaray All African Games All Arab Games kooxdeeda horseeda koob qaaday iyadoo hadana ciidamada qalabka sitay oo dibadda la geeyay anigoo 5 sano ka ciyaarayay dalka Mareykanka NCAA Division 1 so waxani waxay u baahan tahay aqoon iyo qof dareen ku jiro dareen kara qiimaha ay ku fadhido number 1 sida uu walaalkay igu horeeyay sheegay dhaqaaluhu waa qayb kamid ah laakiin let me tell you something wadanka markaan ku soo noqday 2016 waxa aan sameeyay ciyaarihii stateska gabdhaha aan weligood la sameeyay qayb koow iyo qayb labaad baan ka dhignay international community baanu ka helnay garoon baanu dhisnay ciyaaraanu qabanay ciyaaraha waxaanu u qabanay inta dalka joogta gabdhaha ee wax garanaysa inaanu ka dhex helno inta ugu fiican ilaa 8 gabdhood Somali American and Canadian oo matali kara qaranka oo jaamacadaha ku ciyaarana waanu ka soo helnay oo background check up leh profile leh high school soo ciyaaray jaamacad NCAA soo ciyaaray
Canadian ka ciyaaray ciyaaraha xulitoonkooda waxay ka mid yihiin yaa xuli kara ciyaartoy qaran yaa xuli kara xagee laga xuli karaa waa ina horta taa isweydiinaa adigu ka jawaab yaa xuli kara su-aashaas ka jawaab adigu okay alright anaa ini ka jawaabaya waxaa lagu muransan yahay laga boodaya ciyaaraha waxaa lagu xulaa anagu markii aan ciyaari jirnay kooxaa jiri jiray 15 kooxood oo Soomaaliyeed oo gabdhaha Serie A la dhaho heerka koobaad ciyaarta horyaalka marka naloo furo waxaa jidda guddi fariisanaysa oo qoraysa habeen kasta qofku gabadha intay dhalisay intay difaacday intay ribon qabatay intay ku badbaftay intay baas fiican samaysay 40-50 gabdhood ee ugu fiican oo 15 macallin soo qortaan ayaa 3 bilood lagu sameynaya try-out waxaa la sameynayaa tababar baa la fuliya macallimiinta iyada qaranka jaamacadda Indiana ka yimid jiray niman cadaan oo indho blue lahaayeen 4 bilood waxaa nala ku xiray jiray stadium Muqdisho habeen kasta wasiirada iyo agaasimayaasha iyo allaha u naxariisto wiish waxay iman jireen miiska aan ku cashaynayno inaan berima suuqa teersa helayno hadda miyay jirtaa may sidee dadka lagu xulaa qof baa soo doorta qof marka xilligaas waxay ahayd xilli qaab qaran loo xuli jiray oo wasiiradii iyo dad dibadda laga keenay ay ka qayb qaadan jireen xulitaanka macallimiinta wasiir wax ma xuli karo walaal wasiir wax ma xulo xiriirna ma xuli karaan wasiirna agaasimana ma xuli karo tababarayaasha caalamka ee coachka haysta ee Soomaaliyeed ayaa la aaminaya iyaga ayaa wadanka u danaynaya ciyaartoyda tababara labada macallin ee qaranka noqonaysana waa dadka koryaalka qaada iyo ka ku xiga waxaan aqoon baa loo baahan yahay liskama yaacayo laakiin hadda wadankii kubadda cagta wiilka hadda sheegayo maahane tartano waaweyn oo ka dhaco ciyaartoy lagu xuli karaa ma jirto ka xiriirkii ayaa ciyaartoygu xulaya xiriir aan ciyaarin kubad aan weligiis garoonkii aan weligii dad ciyaara ayaa arkin sidee buu xuli karaa marka la soo waxaa dhacay wixii China ka dhacay Soomaa tan kale wiilka sheegay waa dhaqaale xumaa jirta anaga mushaar baan siin jiray bokad mani baa Friday na siin jiray ma helayaan aniga in la hadlayo iyo gabdhihii hore qaranka 3 jeer ayaanu badgeynay all African game garoomada ka ciyaari jirnay anagoo no leaderisa 50,000 anaga dibadda ka keenno dibadda jirto waxa dadkii joogay ee sportski gacanta ku hayay dadkii walaalahooda la shaqeynayay waxaan garanayay khibrad ka qabaan albaabada laga soo xiranaya adigoo dadkii warar ayaa imanaysa waxa lagu la xisaabtamaya agaar ka keentay yaa ku fasaxay warqad ma ku diimay waa dadkii rabinay fawrkii sameeyaan oo wasiirkii ama agaasimii ama kooxihii garab istaaga waayahay sucad waa mahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa waynu qaybsanaynaa barnaamijka dabcan hadba qayb ayaynu eegi doonaa cabdi nageeye waxaa la tilmaamay oo sucaad iyo abuukarba ay hadda ka muujiyeen in xagga soo xulitaanka ciyaartoyda ka qaybgelaya tartanada caalamiga ah qaabka lagu soo xulayo aanu ahayn qaabkii saxda ahaa oo wax badan ay qaldan yihiin xagga soo xulitaanka markaan barbar dhigno caalamka Soomaaliya adigu dabcan Holland u orodaa wax badan aad la socotaa marka haddaad isbarbar dhigto bal Soomaaliya qaabka wax loo xulo iyo qaabka dunida kale wax loo xulo maxaad nooga sheegi kartaa walaal waa su'aal aad u muhiim ah meesha waxaa ka maqan horta inta ay ciyaartoy caalamka aad xulin macnaheedu wuxuu noqonayaa ciyaartoyda sanado badan ay kusoo jireen xirfadii ama kaliya oo soo ordaan ama degmo ka soo ordaan dad xirfad kusoo jira waaye marka hadda federation Soomaaliya waxaa ka maqan shiba dhowr sano la soo dhaafay isku meesha inay kabineesh u tagaan isku meesha inay hadda waxaa maqlay wiilal ayaa qaateen booliska mishaarka iskaga qorayahan lama daba kaco war mishaar waan siinay inta ka dhacdeen intay sanadii booliska loo geliyo oo inta la soo buufiyo booliska lagu qoro oo tarta ka qaybgalaya xamarta la keeno maba isku taxalujinba meel qoys iska maamulanaya noqotay marka meesha waxaa ka maqan basically waxaa la balliga aska kaluminaysid waa inuu ballaarto ka kaluminaysanaysid marka waa in kooxa badan inta la sameeyo ilmihii la tatansiiyo ilmu markuu yar yahay waa inuu iskuulkiisa iska dhiga karo waa inuu orta iska wada karo asagoo 16 jira 16 jira 17 jira marka dambe leeyahay orodkan ku fiican orodkan shaqo ka dhiga doona orodka uu go'aya wuxuu helayaa degmadiisa kasoo qaad yaqshid kasoo jeedaa dukaan weyn yaqshid ku yaal leeyahay miyo 2000 sanadkii oo dhowrka kusoo gato oo kan kusoo gato waxaaba jirinba ballaarkii la ballaarinayay ayaa meesha ka maqan waxaa ka maqan in kilaabyo nadiif la dhiso kilaabyo qalin been lagu qoraa jira waxaa raba in kilaabyadu booliska in la dhaho kilaab semester military kilaab semester Djibouti inagu dhigan ay ka fiirsan karaan Djibouti dhalinyarta gaardiga ayaa la dhahaa booliska militariga saardaaranka dekada macnaha boorka yaa isku taxalujiyada maanta kabriyaal oo xamar ka jira hadda wiilka Khadar Bashiir
markaan ku dhahay nin Soomaali orod laakiin waxna ka filanin anaa ku saacid doona markuu soo fiicnaaday xamar ayaan imid hormuud ayaan la kulmay waan ka dhaadhiciyay waraaqiisaan tusay orodkan ka dhaadhiciyay waan u fasiraya half marathon waxa la dhaho saacadiisa u sheegaya waxa uu sheegaya inuu saacadii ku ordi karo usii sheegay oo saacadii samay doono markay ay fahmeen ayay budget u ogolaadeen oo dhakhtarada u baahdo dhakhtar u baahan laba isbuuc dhakhtar ku jiray xagga soo xulitaanka marka ka waran xagga soo xulitaanka macnaha waxa la jeedaa waa in la hoos laga soo bilaabo waa in kilaabyo la dhiso kilaabiyadaas marka asla tartama maanta oo dhan hala qabto club championship national championship regional championship hala dhaho warbaydhabo wax samaysta Jubbaland tartan samaysta oo dhalinyarta meelaha ka qorqora marka waa la ballaaranaya mar sida cabdi bilo kale nin geeli iska raacay la yaabo inuu dhaho meesha la wardaya bal ha soo galo oo ummadana ka badiyo cabdi bilo ku soo baxay marka meesha waxaa ka maqan ba intaana la gaarin heer caalam in ilmihii la ballaariyo in kilaabiyadii la ballaariyo orodku fudud yahay uma baahno garoon cusub iyo stadium uma baahno jidkaas iska wardi kartaa marka in kilaabiyadii la soo dhiso federation oo ku mashquulo saan kilaabiyadan u dabina saan kilaabiyo marka tan isku baxbaxa oo sida gabadhu sheegtay serie A iyo serie B iyo u kala baxbaxa sida Mareykanka NCAA waxa la dhaho tiya meesha ka maqan iskuma taxallujin militariga ali kara militariga dad badan oo saadada oo ciyaartoy yar sameeysta oo sponsor gareeya dekada sponsor gareeya hormuud Wolverine oo loo tago Premier Bank loo tago Enzo tabiyaasha waaweynka loo tago way fuuta inay 15 dhalinyar ay siiyaan $200 bishii marka halkaas barka balliga ayaa ballaarsanaysa ka kalluumaysanaysa marka soo baxaya laakiin ma diikirtii intaan soo wareegay ayaan raadinaya nin boodaya oo ordaya ninka marka waa inuu hoos ka soo bilaabo soo iskuulka iska dhiganaya isagoo kilaabkiisa jira marka dambe waalidka taageeraya xaafadda howlan marka bitaan ka soo qaado howlan waxa ka soo bilaabaysa tuulada aad degan tahay iyo kilaabka soo galaysa ana misalan ka soo qaado 27 yar bilaabay tuulo yar ayaan deganay marka orodkii fiicnaaday magaalo igu degan weyn ayaan tagay magaalada marka tagay waxa ka dhisnay regional wax la dhaho oo gobolka loogu talagalay oo 10 camal ah marka tababarahaas waxa kor kala socda xiriirka orodada howlan tababariya la tababartay tartan ka qayb galay tartan marka qayb gobolkeedii aan bixin gobolladii dhan isku soo 12 gol isku soo 12 gol dhan ka sii bixiyay anoo sanad orday marka ciyaaraha la diray Europe under 20 marka waa in hoos la soo ballaariyo kilaabiyada la dhiso sidoo la warkabaniyo oo ciyaar sameeysta caruurta caawiya kilaabiyo yar sameeysta rag iyo dumarba waad mahadsan tahay Abuukar qofka markii la dirayo tusaale ahaan dabcan waa laga warqabaa oo qofkaasi hadalhayntiisu ayaan bay socotaa marka tartan caalami laga qayb galayo nooca doona ha ahaado marka inta badan maxaa qofka aad ku qiimeyseen haddii aad tihiin dhinacyada isboortiga ama kubadda ha ahaado ama koley ha ahaado ama orodkaba ha ahaado maxaad xoogga lagu saaraa oo intaad ka og tahay lagu qiimeeya qofka loo dirayo tartan dabcan kulliba qofka waxaa lagu qiimeeya awoodiisa iyo kartidiisa qofka isla meesha uu kasoo bixi karaa ayaa loo xulayaa ama meesha la geeyaa laakiin waxa meesha in la haysto dhibaatada ugu weyn oo haysta waxay tahay sidaan mar walbaba aan ku soo celceliyay waa dhinaca dhaqaalaha hadda yarka cabdi nagay wuxuu ka hadlay in hoos laga soo bilaabo way wanaagsan tahay ciyaar walbaba in hoos laga soo bilaabo laakiin kilaabka ma awooda inuu intaasoo qarash oo bixiyo waa maya waa in dugsiyada laga soo bilaabaa kor loo wadaa marka aniga dowladda markasta waxay ku salaysan tahay war aan iska dayno eedda oo macnadarada ah aan gacmaha isqabsano aan wax wada dhisano waana awoodna inaan dhisano aan taageerno horumarka socdo hadda kubadda cagta haddaan tusaale usoo qaato qaranadayna 12 laga dhalin jiray hadda sida garoomo caalami loo helay waa xoogaa culeysku soo yaraaday farqiga booliska lagu bari jiray soo yaraaday ciyaaraha garoon ma qabnaa Soomaaliya oo dhan garoon ciyaaraha ma qabno ku ordi karaan oo international loogu talagalo orodadii kabihii loogu talagalo ma haysan waxaasoo dhan waa inaan ka fiirinaa keliya aan la dhigin guuldaraa timiday horta Soomaaliya waxay tidhahdeen in lagu xasuustaa ka horreys waa inaan horta fagaarin tagnaa guriga iska imaanaysa waa inaan ka shaqeynaa garoomadii waa inaan ka shaqeynaa diyaargarowga ciyaartoyda waxa ugu horreeya waa in garoon la helaa garoon haddaa in ciyaartoy diyaarin karta ama orada ha ahaado ama ha ahaado maxaa yidhahdaa basketball ama kubad ha ka ahaado waa awalan garoon hadda sida loo helo garoomadan cooska artificialka ah kubadda cagta way isbedeshay hadii la helo garoon waayahay marka xiriirka waayahay xiriirada Soomaaliya ee isboortiga marka arrimaha ma dareensan yihiin dabcan way dareensiin intaan aniga fikiraya in ka badan ay fikirayaan laakiin tabaraan daan dhigtay aniga aaminsanahay tabarta ishmooyin qof walba rabtaa inay magac yeerasho ee horumar gaarto way rabtaa
marka soomaali haddaan nahay soo kabashaan ku jirnaa dowladnimadeena way soo kabanaysaa isboortigeena way soo kabanaya horeyaa loo socdaa iyaanan dadka la niyad jeedin dadka shaqa dhahaayo nin wax qabtaya wax ugu qaldaa guuldarada haddaad guuldarada xanuunkeeda ugu adkaysato guushana way imaanaysaa marka aan ka wada fikirna dhammaanteen siday guusha ku imaan laheyd shacab dawlad iyo maxaa la yidhahdaa iyo isboortka inta gacmaha isqabsano aan ka fikirno khaladka dhacaysnaa u sicneen laakiin yaana laysku eedin guuldarada hadday yarka soomaaligaba guulow gaaro uu soo gudbay wax sheegaya maaragtay hadda waxaa jeedkeliyo cidda ay saarantaha gabadhi oo arkay wiilka guulaysta ka waran asigana waa soomaali somaa marka waxaan rabnaa dhaliil wax kasayso inaan la nimaadno gacmahan isqabsano wadankeena aan hormarino garoommadana aan hormarino ciyaartoy la horumari karnaa markaas dhaqaalaha maxaa la yidhahdaa shirkadaha waaweyn oo hadda cabdinaga inuu sheegay inaan dhaqaalaha ka raadino kow ciyaaryahanka noloshiis aan la kafaalo qaado markaas guul bay imaanaysaa insha waa tahay sucaad iyadoo dhibaatooyinkaasi ama baahiyahaasi ay jiraan oo dhaqaale aanu jirin tababaro aanay jirin xagga xulitaanka wax ka qaldan yihiin in haddana lagu dhiirado in laga qayb galo tartano caalami ah oo dalal dhisan oo dadkoodu tababar haystaan oo dhaqaale ay haystaan oo waqti lagu bixiyey in haddana soomaaliya ay ku dhiirato oo dad ay geyso maxay ka dhigan tahay aniga run ahaantii sucaad ahaan waxay iga dhigan tahay qiimo weyn in la diyaar garoobo oo loo diyaar garoobo waa wax wanaagsan laakiin kabashada dalkeena haddii la hayo dad matali kara ama meelo dhexa soo geli kara calankeenana arkaya inay soomaaliya soo kabanayso waa waxaan aaminsanahay waa waxaanu gabdho badan u geynay meelo badan marna aanu badinin nala ka badiyey hadda ciyaaraanu isu diyaarinayna jaamacadda carabta oo lagu qabanayo wadanka Morocco oo ah gabdho clubs ah oo 8 dibadda joogto qaarna gudaha aan rabnay inaan ka xullo waxaa loo sameynayana wax waaye dhibaatada iyo kabashada wadankeena inuu ka muuqdo walaalkii iga horeeyay wuxuu sheegay inayna garoomo jirin waa run laakiin ogow garoomada hadda inoo diyaarsan waa kuwii cabdi bile iyo jaamac aadan karaacin iyo kuwo lamida la tababaran jireen guulahana ku keeni jireen waynu gaari doonaa inaynu helo xaafin milyan weeye garoonka Dragon Field marka la dhigo garoonka kubadda cagta waxay ku tababaran jireen stadium Muqdisho iyo stadium Koonta hadda yiriso loo bixiyay waynu leenahay dhalintii way joogtaa dadkii annaga markaan ciyaari jirnay iyo dhaqaalaha hadda Muqdisho yaala badan isku mid maaha laakiin waxaa loo baahan yahay waxaan garanaya aabba iyo hooyo ah in ay ka dhex muuqdaan hadda wiilkan ka hadlaya Yurub yarkan ordi jiray waa run waxaa loo baahan yahay nimanka dhaqaalaha haysta ee daaraha dhaadheer dhistay in loo tago sababtoo ah ciyaaruhu waa farxad waa isdhexgal waa nabadeyn waa isbarasho waa walaaltinimo waa waxa waddankayga anagoo Maraykan joogno wax baranay carruurtayda jaamacad ku jirta naga soo celiyay waa farxadaan ku kornay marka hadday iyaguna rabaan nimanka businesska ah in waddanka iyo magaalo madaxdii nabadoodo waa inay ciyaarahaas dardar geliyaan oo ka xasameeyaan laakiin baanu la shirnay afartan nin ugu lacagta badan Soomaaliya Muqdisho aniga gabadh Gini la dhaho hor ciyaar jirtay inji oo soo noqonay ayaa dardar gelinay ula hadalnay haddaan inay badbaadaan daaraha quruxda badan samcadda magaaladu hagaagto waa inaad focus karaysan ciyaaraha haddana xagee laga bilaabi karo waaya xagaanu ka bilownay dugsiyada hoose dhexaa laga bilaabaya waa tahay qaran lagama heli karo jaamacadii dugsi sare bayskooda waa inuu dhisan yahay foomka sportka ama orada dayta ama kubadda kolayga cagta waa in laga bilaabo iskuullada 25 iskuul oo hadda Muqdisho ku yaala ayaanu ka bilaabaynaa physical education in la soo celiyo lama dardar geliyo waa tahay sucad waa mahadsan tahay dhammaantiinna waa mahadsantihiin qadka igu jira waan idinku soo laaban doonaa markan waxaan siinayaa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo dhanka Facebook qodobkan aragtidooda kaga soo dhiibtay galab wanaagsan oo cambada BBC magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamo ee dowladda deegaanka Soomaalida haddii aan aragtida ku darsado barnaamijka dooda galabta ee laga hadlayo caqabadaha Soomaaliya ka haysta dhinaca ciyaaraha run ahaantii waxaynu ognahay dalku muddo badan inuu burbursanaa ciyaaruhuna waxay ka mid yihiin waxyaabihii ugu badnaa ee burburku saameeyey waxaa jirta xilli ay Soomaaliya ka mid ahayd wadamada caalamka dhinaca ciyaaraha ugu horeeya haatan ku dheed wax muddo in soo kabasho lagu jiro mar haddii aan ka qayb galino ciyaarihii caalamka oo goromada weyn caalamka ka muuqanayno dhawaana waa tii aan Soomaaliya guusha ka keentay ciyaarihii bartamaha ee bariga Afrika waxa kaloo jira tartamo caalami oo ka qayb galo heer wanaagsan soo gaadhnay khasabna maaha markastoo ciyaar aan ka qayb galo inaad guuleysato ama heer wanaagsan soo gaadho balse waa inaad guul iyo guul darba u diyaar garowdaa waxa sidoo kale jira orodyahanada caalamka ugu dheeriya qaarkood waxay u dhashay Soomaaliya sida Mo Farah oo kale saas darteed dawladdu waxa looga baahan yahay inay waqti badan u geliso isla markaana ay aad u soo xusho
dadka inooga qayb galaya tartamada caalamka tababaradeen inaan xoojino. waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada Burco xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya gaar ahaan musuqmaasuqa ee xaal sheegay inay kor hubanayaan tartanada caalamiga kadib ciyaartii ka dhacday wadanka China ee Soomaaliya guuldarrada kala kulantay runtii waa mid hoos u dhigaysa samcadda uu lahaa xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya iyo rajada ay shacabku ka qabeen xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya waxaase habboon in wixii khaldamayba dib laga saxo ana qubtaba dawlad la qabay ay yiraahdaan Soomaalidu waxaase aan weydiin lahaa martida ee barnaamijka dooda ee khubarada ah waa sidee qaabka ugu habboon ee loo sixi karo khaladaadkii dhacay si ayna meesha uga baxin kalsoonidii iyo rajada ay shacabka qabeen xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya khaladaadkan dhacayna uusan wax saameyn ugu yeelan xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliya wadmaasantiin BBC. magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabarey oo jooga degmada Galdogob haddaan ra'yigayga ka dhiibto barnaamijka falanqaynta maantay runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ciyaaraha Soomaaliya hadday noqon lahayd orodada iyo hadday noqon lahayd kuwa kubadda cagta iyo hadday noqon lahayd dhammaan arrimaha isdhexgalka bulshada dhalinyarada gaar ahaan aad baan u soo dhaweynayaa laakiin halka kaliya ee sartu ka qulunsan tahay waxa weeye in qof kasta aan lagu soo xulan kartidiisa iyo waxyaalaha asagoo xirfadda u leeyahay ee lagu soo xusho eex iyo qof jeclaysi marka arrintaasna waa in meesha laga saaraa baan leeyahay oo xukuumaddu ay meesha ka saadhaa eex iyo qof jeclaysi oo ay qof kasta kusoo xulataa xirfadiisa. way mahadsan yihiin waa qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da oo dhanka Facebook aragtidooda noogu soo diray markana aan dib ugu laabto martida barnaamijka qaybtan waxaan ku bilaabayaa Cabdi Nageeye sidaynu la soconna hadda Soomaaliya orodkan ka furmay dalka Shiinaha dabcan waxay kala kulantay fadeexad oo si aad ayaa loogu hadalhayay dhanka baraha bulshada oo gabadha ay uga qayb gashay inkastoo la isku tuurtuuray oo jaamacadihiina ay dhaheen gabadhaas annaga nama matalaynin wasaaraddii ay ka hadashay xiriirkii iyo dhibaato badana ka dhalatay ilaa iyo hadda sida muuqata marka qaabka looga falceliyey adiga sidee kula muuqataa? walaal waxaan u malaynayaa in sabab horaan waxaan ka dhahaa bilowgii waxaan dhahaba arrintan waxay sabab noqon doontaa in siiba orodada ay isbedelaan wayna dhacday in isbedesho odan gabar markii labarka bixisa u jeeday in arrinta faraha ka baxday marka Soomaalidana waa taqaanaa in dhaadeed waan dhameynay gabadha habartiisa la socda habaryada orodada xakunta warku iska cad yahay marka waxaan rajeynayaa in inta la cafiyo dadkiina laata sameeyo iska filayna dhahaan bal waan idaafnay bal la wareego wax isbedel fiican yimaado arrintan sabab u noqoto gabadha hadda soo sheegtay oo daduna la jirta gaar magacaada ilaahay si fiican ay u taabatay si run u sheegtay xariirku orodada waxa laga rabaa hadda ka dambeeya in ayagu inta dhaqaaqaan kibineesh u tagaan gabadha ay wadankii timid waa kibineesh u tagtay way iska soo gaday orodku waa kambani noqonaya waa inaad suuqa isgeysid oo isgadid oo ummadii istustid marka arrintan waxay waa khayr in noqotaba marka sharba ummadina ilaahay khayr nooga dhigay waxaan rajeynaynaa in hadda wixii ka dib isbedel yimaado isla wada tashtana oo la isdhaho war maxaad adigu soo kordhi kartaa kii meesha ka sii dhaho bal meeshaan iskaga laaban ka baxay iga raali noqdo intaasana mid sii hayay faleen baa ku hayay dib ma lahan haye dad cusub la keeno isbedel yimaado hoos mise gabadha sheegtay yaanu saan sheegaba in hoos laga soo bilaabo naadiyaasha la badiyo kibineesna loo tago lacag weyn buuxaa dalka gabadha sheegtana dalku maanta ka qanisay xilliyadii hore kibineyaal waaweyn maanta jira haas petroleum warwadiyaabaysa bilyaneerada Soomaaliya maanta jooga ma waxaa lagu kufay $100 in cundiga u ballan qaadaan waa la heli karaa garoonkana sidii la sheegay garoomada lagu marsiinayo orodku hadda waxaa jooga iten aada home of champion waa tuuladii championka waa tuulada ugu biladaha badan dalka Kenya garoon ciid ayaa lagu tababartaa sida garoonka hadda xamar ku yaalo kale waa ciid garoonka lagu tababarta uma baahna garoon $200 ku baxday waa 400 mitir talo inta cagaf lagu mariyo lagu simo raadsid laamiyada jiifka la soo marka iyo jimira u baahanta marka waa in laga fikiro war waxaan budget yar aan haysanaaye sidee wax ku sameynaa sidee wax ku bedelnaa wase gabadha sheegtana adigu waa inaad dadaalo federasigu waa inuu dadaalo waa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo oo isbedel marka waxaad leedahay hadba inta la heli karo waxa lagu qabto absolutely haddaan ka yimaadaan way isku maxaan way yaabaan ciidan ku noqdeen champion markay la qabsadaan waxay dareemayaanba in ciidan adag oo la simay ka fiican tahay garoonka caadiga kasi garoonka caadiga wax yar adag yahay waa rubber kaafa dareemaysaada waa tahay ciidaba dareemaysid Cabdi Nageeye waa mahadsan tahay waxaan istaa wax lagu isticmaalaa waad mahadsan tahay Abuukar
wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya iyo xiriirada Soomaaliya siday u wada shaqeeyaan horta طبعا way wada shaqeeyaan wasaaraddu waxay qaabishan tahay siyaasadda ciyaaraha Soomaaliyeed xiriirada waxay qaabishan activity-yada iyo tartamada iyo waxa kale soo abaabulaan marka wada shaqeyn wanaagsan ayaa ka dhaxaysa xiriirada iyo wasaaradda laakiin hadda safarka ay gabadhu ku tagtay Shiinaha oo ay kaga qayb gashay dabcan waxaad moodaa in aan la wada ogeyn oo waxa lala wada socon marka arrintaas oo kale sidee ku imaan kartaa ay kula tahay maadaama aad si wanaagsan uga warqabto arrimaha inaan fahmno ayaa muhiim ah gabadha ciyaaraha ay ka qayb gashay waa jaamacadaha ma ahan ciyaaro ee xiriirada ama xiriirka ciyaaraha guud ay soo abaabuleen ma aha waa tartan jaamacadahana ayaga xaq u leh inay soo xushaan cidda ugu qayb geli lahayd tartanka jaamacadaha qudhoodu waa ka hor yimaadeen arrinta waxay dhaheen gabadhaasi annaga naguma matalaynin taas baaritaan ay u baahan tahay wasaaraddan u madax banaan inay baarto in ay gabadhan jaamacadda ka tirsaneyd iyo inay jaamacadda tirsadeen in kale taas waa arrin baaritaan u baahan laakiin sida sharciga qabo xiriirka ciyaaraha furud waxaa lagu eegi karaa oo keliya qaramada maaragtay ugu qayb galaan laakiin tartamada dugsiyada ama jaamacadaha ayagaa u madax banaan waa tahay Sucad gabdhaha inta badan tartamada laga qayb galo dadka qaar si aaday uga hadleen oo hadda gabadhan aada loo hadalhayay inkastoo wiilkii guusha gaaray isaga laftiisana laga hadlay laakiin hadalhaynta ugu badan waxay ka dhalatay arrinta gabadha marka maxaa ka dhalan kara dadka qaar ayaa aaminsan in niyad jab ay u keeni karto arrinta gabdhaha ciyaartooyda ah ee hadda qaarkood laga yaabo inay ku haminayaan in isboortiga meel wanaagsan ay ka gaaraan waa mahadsan tahay waa arrin aada u adag aniga si caad ahaan ciyaartooy ahaan aad bay ii taabatay because anigu waxaan arkayay gabadha in la ambiyey qofku hadduuna aqoon u lahayn meeshuu u socdayo higsigiisa laakiin lagu curiyo isaga oo lagu yidhaahdo tag wuxuuna ogeyn farxad buu ka qaadaya laakiin ma daransana waxa ka horeeya aniga iyada xaggaasan dhigaya gabadh anbaday ahayd laakiin reeri qaladka weyn wuxuu dhacay horta qalad markuu dhaco intaanad hadlin waxaa fiican inaad urursid xogta waa inaad caqli isticmaashaa haddaad madax tahay ururi xogta dadka markaad usoo bandhigaysid horta qaladka weyn wuxuu nagaga dhacay haddaanu nahay ciyaartoydii hore ama xiriirka ama wasaaradda ama Soomaaliya gabadhani waxay wardaysay jaamacad kasta ha ku tagto jaamacaddu calaamad gaar ay leedahay walaal waxay leedahay qalab jaamacadda magaceeda ku qoran yihiin iyo istaanteeda anigu markaan Mareykanka ka ciyaarayay jaamacadda University District of Columbia BC ku taala scholarship ka hel Soomaali waan sheegay jiray laakiin aniga Soomaali ma ciyaarin jaamacadda iyo maaliyadeedan xidhnaa horta qaladka koow wuxuu ka dhacay gabadha in loo xiray dharka buluuga haddana Soomaaliya fashion waxay noqotay koox aan weligeed jecel ciyaarin in calanka buluuga loo geliyo horta taana waa in laga fogaadaa shaqo weyn waaye inaad wadankaaga matashid dhibaatooyin baa loo mari jiray talabaad waxaad weydiisay xiriirka ka dhexeeya xiriirada iyo wasaaradda wasaaraddu hadda waa political appointee madaxweynaha magacowday waa madaxa ugu sarreeya ee siyaasadda waddanka xiriiradu waxay hoos tagaan olombiga xiriirada wasaaraddu ma soo magacaabato sidii annaga waqtigayagii waxaa soo magacaado kooxo waxaa fiican in hoos loo dhaadhaco kooxaha soo dooranaya xiriire maxay yihiin xaggee ka yimaadeen ma sharciyeysan yihiin annaga markii aanu ciyaari jirnay tiim kasta wasaaradaha ayaa lahaa anigu ciidamada qalabka sidaan ahaa hadda weli waan leenahay tiimkayga kubadda cagtaan leenahay gabdhihii baan leenahay wiilashii ordayaan waxa iyaga sidii bay u jiraan ha taag daraanaadeen booliiskii iyo ciidamadiiba waa laba kooxood oo dhisan oo handbooshii gabdhaha leh oo kubaddii kolayga leh oo orodadii leh wiilasha kubadda cagta wax kasta leh ma waxaanu lahaa jirnay kooxuu sharci bay lahaayeen sharciga waxay hoos geyn jireen wasaaradda dhalinyarada sportska muu jiri jirin olympic gaar u taagan laakiin hadda olympic wuxuu noqday non profit organization budget leh oo adduunku sharci gaara leh waxay leeyihiin ogeysiin keliya wasaaradda ciyaarahaasaa yimi waanu ka qayb gelaynaa goormaa laga qayb galayaa xilligaa warqaday saxeexayaan ma oga weli sharciyadoodii inay ogaadaan yaa la diraya waxa shuqulku male waa 10% for the sports policy 90% waa ciyaaraha bolisiga adduunka u dhigan sports policy waa tahay saasay ku kala duwan yihiin waa tahay Sucad waa mahadsan tahay cabdi nageeye
arrintan oo kale Soomaaliya hadda la kulantay markaad eegto aragtidaada maxaa kaga imaan kara Soomaaliya in tartan dhan oo caalamiya ay kala soo kulanto guuldarrada caynka ah oo weliba warbaahintii caalamkana siyaabo kala duwan ay uga hadashay Soomaaliya maxaa yacni weji caynkee ah ayay Soomaaliya caalamka kala kulmi kartaa ama arrintaasi uga gudbin kartaa والله والله عيب وين أيه نقول نقول of course الدنيا وسط أنا وحاجة قف كست واحد stereotype لبهو مرنا ولا بهو أنا كشراء وإحنا سهل من العقل أروي شري مرة لبهو pirate آياته نحب الأوجيها إن ذلك بلا دولة هاي عندنا عن تنلا من عنه وحنوسي نقطة 4 شكل أنت سقف عنا يعني لأن هاي محلين كده موديل مو فاره كنعان عندنا ساسة هاي 4 شيء نقطة شرف الصومالية جامعة فرنسا صحوا جامعة مركي أدون كأي نقطة قط مالي الصومالي كورديسا قبل برازيل وقتي الجمكان وقتها لكن جامعة الوقت كورديسا لكن درك قرن كعشان يسوون بس جد قصة تكفي درك هولم كورديا مركا لكن خلص توصل على كل مالي دول ورديا مركا عيب وين مركا مالي دول ورديا مركا الصومالي ورديا هذه جامعة نقول هذا واحد كلام نقول هذا جامعة كيف جدال ليلها لكن جامعة صومالي ترتب كسر غير شيء غير كسر كتير يجيكم ملايا يوفي نجوايا ثاني نكورب مركي عيب وين أي نوع نقطة ميال كستاني ولا صاحب لي إلا حرير بقبض رضا ولا صاحب لين مركا وحنا نقطة عيب وين مركا إلهي دي وأنا أسكن نقولنا والله ده أوكي يفيد عويد عين لكن ماشي تصني القصيات واضح النشا تيب أوروبا بكاس أوروبا تيجي عبد بالله المنطقي وحوالي كذي كرنا ومفروض هاي يصير له طابات ما أهل منطقي marka caalamka marka sidaan oo kala dhacdo caalamka markay sidaan oo kala dhacdo maxaa la sameeyaa maxaa tallaabooyin ah oo la qaadaa إنه بارتان يلا سمينا maadaama meel kasta lagu qoray aniga waa la soo hadlay baaritaan ayaa la sameynaya oo ah arrintan haday sagaxa tahay مثال رامسيو ياري أولمبي مرة يستوي بلي ويل فرنسيس كوردا أو الجيريان كسر جيل أصل كيس مسلمة هي نيجي هالرجي بيها مركبة سفناء يعني ولا قادني بيجي ميس وصلجة إلى 10 متر لو كان على سفناء أنتوا على عسكو وقت ساعة وده ذلك قدام يقصر أنا مركبة عند بس السعودي سوي ساعة مركبة متقاطع كلا قالوا أيوة صافي ده صافي أنتوا وش ما دادي أنا ولا يابد مش حنا قرر حاسة دور ميس كلا كهرية كقال بيها هذا ولا لسه هذا وحال عرفة سواركتا عشان حنا لا أركي أخلاق حنا لا أركي فرنسيسكا ولا لا هذلي من وجود جناحة أون مو قبتي مو كل بي مركا أدوكو يا لما نوجد ولا وجه ده غير أدوكنا وحن لين يا بصوت يا بغى أركن كلابي كقاعد دونا واتاي وما سنتهاي إن أبو كر قيبي دم برامج كاينو كوسي سعنا واي إن أبو كر قد كوسو لابن دونا أنسيو السعاد إن السعاد مركا أرنتان هذا fadeexadda ah ee aadka loo hadalhayo ee toddobaadkan dhan baraha bulshada haysatay nagayna ka hadlay ma keeni kartaa in Soomaaliya ay caalamka kala kulanto dhibaato ah in Soomaaliya ciyaartooydeedu aanay tababar haysan oo sidii markii hore laga haystay si ka duwan laga qaato may anigu ma qabo xalay waxay la soo xiriiray ESPN Women Sports in US Atlanta Georgia interview iga qaaday iyagoo ay weydiinaya waxa dhacay kow waa inaynu ka hadalnaa inaynay ahayn heer qaran ay ahayd heer jaamacadeed waan u cadeeyay waxa kale jaamacad baan u ciyaarayay calanka Soomaaliyeed ma xidhnayn waan soo xidhay qalad dhacay bay ahayd gabadhu iyada kaligeed xidhatay calanka buluuga ah jaamacad bay u ordaysay inay jaamacad horta adduunka waa inaan ka dhaadhicinaa inaynay ahayn inay magaca Soomaaliyeed ku ordaysay magaceeda iyo magaca jaamacadeeda ku ordaysay waa kow labo waa in wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda dhalinyarada iyo Olympiga ay soo saaraan war cad oo ku taageersan yihiin qalad dhacay inuu ahaa ayna ahayn wax dawladda Soomaaliyeed ama qarannimadeena ay ahayd ciyaaruhu wala way dhacaan misaygu u dhacay naga kaliya kuma dhicin aad u ogtihiin aniga generationkeygii Mike Jackson iyo inankii ordi jiray waxa garanaya wiilka walaalkay iga horeeyay isagoo intaas sano hurdaya dib loogu qaaday maxaa biladihiisi qaladaad u sameeyay isagoo calanka Mareykanka ku ordaya qaladaadku way dhacaan maxaynu u baahanaa inaynu wax ka baranno wax kasta oo kugu dhaca waa noloshaada qayb ka mid ah inaan tan oo kale dhicin hadda marka maxay tahay in la sameeyo you have to come with solution waa in solution keena waa in xiriirkii Olympigii iyo wasaaradii fadhiistaan waa in lectureskii la taliyaan waa in ayna mar kale ina ku dhicin laakiin qaladka muxuu u dhacay wuu dhacay damage has been done we can recover we have to bring solution on the table
muxuu yahay inaynu wixii aynu khaladno wax ka baranno oo saxno indhahana la kala furay annagu markaan ciyaarayna social media ma jirin laakiin hadda dadkii soomaalida jeclaa indhahoodii waxay ku jeedaan social media waa la arkaya waana lagu jiraa waan ogahay wasiirka waa wada hadalay shaqo fiican buu wadaa olombigii macalinkayga qarankaa wada wuu ku jiraa gabadha xiriirka hadda way naga maqan tahay waa laysu tegayaa qalad baa dhacay waa la saxaya wax fiican baana imanaya annaga as a women in sport waxaa dan noogu jirta inuu khalad dhaco si aanu cadu yeelano ilaa iyo shalay inta meelada Maraykan iyo Yurub ka hadlay waa ciidaasay ka badantay waa challenge noo soo baxana loo ogolay annaga laftigayga Soomaaliya challenge ku jirtaan 3 challenge ku jiray ma ogola gabdhihi inay ciyaaraan waa fursad qalad ka saxda laga bartaa waxaynu ka baranaynaa dawladda ogaanaysa waxa ogaanaya wasiirka annaga ogaanayna waynu saxaynaa yaan la sii buunbuunin Soomaalidu ciyaaruhu waa farxad waa isdhexgal waa walaaltinimo waa khalad la saxo qayb bay ka tahay wasaaraddu waxay sheegtay in shaqadii ay ka joojisay guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud marka ciqaabteedu ma waxay noqon kartaa oo keliya inta adigu ka og tahay in shaqada laga joojiyo oo keliya ama sharciga ama tallaabada laga qaadayo muxuu noqonayaa horta gabadha ilaa aynu gelsi ma noqon karto ilaa aynu helo xogta oo dhan soo ururno say waxaana u dhacin siday ku bilaabmeen gabadha yaa keenay walaasheedaa dhashay ma runbaa weli ma ogin dad baynu jaaji garaynayna markaynu xogta hero fiiri soomaalida siyaasadda iyo ciyaari bay walaal isu khaldayaan adeerka si loo diiday wasiir ama in adeerka uu waayey xildhibaan ayaa dawladdii iyo ama xiriirkii ama wixii caayaya horta aynu xogta helo markaynu xogta helo ayaynu qofka maxkamad geynaynaa wixii khalad ee dhacay ilaa hadda qof realitygii og gabadhii xiriirka ma joogto wiilkii kale gabadha kaxeeya b c buu joogaa jaamacadeedii warka ma hayno sidaynu uga hadli karno waa inaynu xogta ururinaa xogta markaynu helo qofkii khaladka galay meel cad inoo yaallaa kadibna waxaynu ku noqonaynaa saynu u saxaynahay inay mar dambe u noqoteen waxaa laga yaabaa tan inay fursad tahay anigu waxaan u arkaa fursad ay ciyaaraha Soomaaliyeed heleen dhalinyaro badan oo cadibnay oo u haysatay inay qaranka u qalmaan aan jaanis helin si hadda laga fiirsanayo ma garatay waayahay inaan shar u arkin nabadda aan ka raacano insha allah asalaamu calaykum wacalaykum salaam abuukar ayaa qadka kusoo laabtay abuukar hadda wasaaraddu waxay sheegtay in arrintan ay baaritaan ku samaynayso guddoomiyihii xiriirkana shaqadii waa laga joojiyey inta aad ka og tahay tallaabooyinka marka waxaana ay dhacaan Soomaaliya laga sameeyo ama xagga xiriirka ha ka timaado ama xagga dawladda ha ka timaadee maxay tahay runtii waa maqlay in wasaaradda ay shaqada ka joojisay xaqna looma laha xiriir la doortay inay wasaaradda shaqo ka joojisaa ama olimbikada ay shaqo ka joojiso gudoomiyaha xiriirka waxaa shaqada ka joojin kara oo keliya maxaa la yidhahdaa guddiga fulinta wuxuu orgeenaya congress ayaana shaqada ka eryi kara marka waxaan rabaa marka hore in dastuurka la akriyo laguna dhaqmo olimbikada xaq ma ulaha mana ka joojin karta shaqada waa midda koowaad midda labaad khaladkii dhacay wuu dhacay khalad guuldaradana khalad dhacay lay ku timaadaa guuldarada way dhacday sidee maaragta loogu gudbi karaa sidee ku dhacday in la yidhaahdo meela haboono midda kale sida walaashay su-aada sheegtay sax weeye gabdhaha Soomaaliyeed way ku yaryihiin ciyaaraha gabar atletic ah oo ciyaarto way ku yaryihiin waxaan rabnaa inaan hormarin ciyaaraha noocyadooda kala duwan ma aha inaan annaga eed iyo hebel aan shaqada ka joojiyo iyo lasla aado Soomaaliya soo kabashay ku jirtaa dadkii niyadjabin gabadhaasna hadda niyadjabka ka muuqdo waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo guushana way imaanaysaa insha allahu tacaala haddii aan ka wada shaqeyno dhammaanteena aan u wada istaagno eed keliya wax ma karayso waa dhaliisha waa inaan wax ku dhisnaa waa inaan garab istaagnaa cid kasta oo isku dayda in ay magaca Soomaaliya meel geyso waa inaan garab istaagnaa haddaan nahay bahal sportiga meel kastaan joogno waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno ciddii maxaa la yidhahdaa oo horumarka ka shaqeynayso inaan garab istaagno qaladka dhacana waa uu dhacay guuldaraan ku timid wadamo annaga naga weyna guuldaradaas oo kale ku dhacday gabadhina waa gabar yar oo hadda maaragtay mustaqbal leh laga yaabo guulo kale inay soo hoyso aan garab istaagno qaladkaasna inuu soo laabanaan ka shaqeyno insha allah qaybihii dambaan kusii soconnaa aan kusii raaciyo su-aal kale si arrintaani aynu usoo noqon dhegeystayaasha b b c da ay aragtidooda soo dhiibtana dabcan su-aashaasi martida waa ay soo weydiiyeen si qaladkan aanu mar dambe u dhicin oo fadeexadan oo kale aanay u imaanin maxaa la gudboon xiriirada wasaaradda iyo dhammaan bahda isboortiga
waxaa la gudboon inaan wada shaqayn dhammaan qof walba geeska ugu aadan ay kaalinteeda ka qabato qof walba oo soomaalinimo ay u shaqayso qarannimo ay u shaqayso laakiin aysan qof ku xumaynin calankaa wuu naga wada dhexeeya xaqowna nagu leeyahay dhammaanteen aan wada shaqayno cid kastaba wixii ay awoodana dhinaceeda ka qabato xiriirada keliya yaanan lagu daynin dowladda keliya yaan lagu daynin shacabka laftirkooda kaalintooda ay maqan tahay ciddii ay arkaan in ay u arkaan inay horumar gaarsiin karto ama guulo ay keeni karto inay keenaan ay waqti geliyaan ay qarash geliyaan loo baahan yahay sida walaashay sucaad ay sheegtay waagii dowladda dhexe waxay ahayd dad la baryeelo oo dowladda ay ka warqabto laakiin hadda cid ka warqabtay cid dhaqaale gelisa ma laha waa inaan annaga u istaagnaa oon aanan marnaba ii jirin laakiin haddii aan idhaahdo eeda timaad xiriirka ma laha calanka soomaaliya iskale calankana waa wada leenaha cid goynina ma jirto waa inaan u wada shaqaynaa garab istaagnaa horumarka isboortigana noocyadiisa kala duwan leh aan garab isku siin aan cidna ku oeynin haddaan nahay baawiinka isboortiga soomaaliyeed waa tahay waad mahadsan tahay sucaad adigana bal aragtidaada ku aadan waxa laga baran karo iyo sida arrintani aanay u soo laaban waxa la qaadi karo tallaabooyinka aad isleedahay waa la qaadi karaa si tan oo kale aanay u dhicin tallaabada weyn waxa weeye inaan xogtii ururino laga tashado ilaa dowladda ilaa iyo olombiga wasiirka gabadha xiriirka haysata marka meel cad la saaro sidii ay ku dhacday iyo gabadha jaamacadday dhiganaysay iyo waxa dharkan buluugga u xidhay iyo waxa soo xidhay ee dibadda ka keenay qadartan ina ku dhacday marka la helo go-aan baa soo baxaya sharciyad baa soo baxaysa waxaa laga digi doonaa insha allah in ayna dhicin mar dambe waxaa lamid ah oo daawacaya ama dhib u geysanaya magaca soomaaliyeed ee meesha kasii lisha hadda soomaalidu badanaa marka ay wax dhacaan dowladaheena ayna markaa jira ayaa la eedeeya anagu waxaan nahay ciyaartoy markasta positive vibes ka nahay waxaana ka sheekaynaa nabadda iyo wanaagga madaxweyne keligii iyo ra-iisul wasaare keligii dad wax qaban kara maaha adduunka dadku iyagaa wax qabsada hadda inankanina kala soo hadlaya yurub magaca weyn leh ciyaartoyda ah waa inuu qayb ka noqdaa horumarinta track and field cabdibiliya jaamac karaacin waa inay soo galaan waa dadkii ku bartay waxbarashada bilaashka waddankan waa dadkii nabadda ku joogay waa dadkii steeri muqdisho ku xiraysnaay 3 miil la siin jiray dhaqaatiirtu la saaxan jirtay diyaaradda soomaaliyeed waa inay qayb ka noqdaan waana way cabdibila cabdiweyni wuu joogay waa lala hadli waayey waan la socdaa laakiin fiiri hal qof oo ku ignore gareeyay ama 2 qof waddankaagii ku gaarsiiyey ilaa maraykan inaad jaamacad friya ka heshid inaad world champion noqotay inaanu la mid noqono inaanu la xaquuq noqono dhalinyarada maraykanka u dhalatay waxaanu indhaha ka qarsan karra maaha wasiirna nama celin karo xiriirna nama istaajin karo xoog iyaga iyo xoolaha iyagaanu gelinaynaa walaal marka yaan waddanka ma isaga indha tirin qofkaasaa joogaan la jirin waa tahay adna waa mahadsan tahay cabdi nagey dardaarankaada ugu dambeeya maadaama orodyahan caalamiga aad tahay soomaalidiina aad si fiican arrimahooda ula socoto si arrimahani aanay u dhicin oo bal tala ahaan maxaad u soo jeedinaysaa soomaalida walaal mar kale su-aad walaashay mar labaad saxo ciyaaraha dhacaya calanka Soomaaliya ordaya haddaad ku qortid FISF fiisu waxaa dhaw University Games opening ceremony sida loo furay waxaad u malaysaa sida Olympicada loo furo waxa firework iyo xaflad ka dhacay waa heer caalami oo aad u sarreeyana aad u sii isticmaalo aad u sii weynay oo sportiga dhan ayaa isku tagay waa Olympic Games loogu talagalay jaamacadaha waa heer sare ayaana aad weyn naga soo gaar marka calanka Soomaaliya waa inay xirato waa loo baahnaa waa inay xiran lahayd gabadha ag taagan waa Brazil marka waxaa gashanaysaa national team midda kale intaan ka gudbo sida wada sheegtay waa sax annaka dhan waa inaan wada xil saarno anigu that's why maanta Khadar Bashir yaa hadda Soomaaliya ordi doono oo saacadii sameeyay qualification time-kii since 1996 anaa 2 sano ka hor u dhahay asxaab anaa ku saaciidi doono anaa ku caawin doono darkii la gasho okay marka maanta waa ka Soomaaliya ordiya oo qarashkii juhdiga geliya haddan ila jooga la tababaranaya ciyaaro joogana aan tagayno oo ku tagayo qualification time marka waxaa loo baahan yahay in la wada shaqeeyo yidi dhacana loo dhaw ka dibnaayo waa in maxkamadda la saaro kabacdina bahadda kabacdina waad mahadsan tahay khaladka ugu noqonayaan dhammaantiin waad mahadsan tihiin cabdi nageeye oo u orda dalka Holland Abuukar Maxamed Sheekh gudoomiyaha waa naadiga Muqdisho City Club
iyo Sucaad Galow oo horey ugu ciyaari jirtay kooxda Horseed ee kubadda koleyga ee qaranka Soomaaliya Mareykanna ku nool laakiin hadda ku laabatay Muqdisho oo qadka halka kaga jirtay dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin barnaamijka ayay nagala qayb galayeen dhageystayaasha ayaan sidoo kale uga mahad celinaynaa qaybtooda barnaamijka waa Xasan Shucmar oo idinla sida ay nabadgelyo